gabadhan aabaheed ayaa ceel ay masas iyo abeesooyin ka buuxaan ku riday asagoo qurbaan ama martiqaad uga dhigaya duulal uu la shaqaysan jiray maadaama uu ahaa nin sixirka aad u daneeyay. qisadan waa mid xaqiiqo ah oo argagax leh waxayna ka dhacday dalka Suudaan sanadii 2010 gaar ahaan tuulo ku taala galbeedka dalka Suudaan. ugu horreyn haddii aad muslim tahay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto siina share garayso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay ugu waana qaataan. qof ari raacay ayaa waxa uu ari ku ilaashanayay meel u dhow ceelkan oo tuulada u dhowaa. ceelkan dadkii tuuladan ku noolaa jiray waxa ay ka sheegeen qisooyin badan oo argagax leh waxayna sheegaan inay jin iyo shayaadiin degan yihiin. qofkii ariga raacayay markuu u soo dhawaaday ceelkan waxa uu ka maqlay codad aan caadi ahayn. haddaba waa maxay qisada Shawaayil dhacdada argagaxa badan ee Suudaan ka dhacday tuulada lagu magacaabo Sotri oo ku taala dalka Suudaan. gabadhan Suudaaniyada oo lagu magacaabo Raya waxay guri kula nooleed aabaheed iyo walaalaheeda oo ku aabba kadib markii hooyadeed dhimatay muddo hore aabaheedna uu xaas kale guursaday iyadoo aysan da'deedu gaarin 14 sano ayay aabaheed shaqooyin badan ka saaciday jirtay gaar ahaan ariga ayay u xanaanay jirtay oo u raaci jirtay sidoo kale beerta beerideeda ayay ka saaciday jirtay dadka tuuladaas oo dhan dhaqashada xoolaha ayay ku tiirsanaayeen. maalin maalmaha ka mid ah subax qurux badan oo la soo kacay ayaa waxay kaxaysay arigii si ay u soofiso oo u gaarsiiso halkii uu soo daaqi lahaa meel aad u fog oo aysan habeenkii ka hor ka soo hoy karin ayayna gaarsiisay. markii la gaaray oo ay rabto inay gurigii u soo celiso ariga mid ayay u tirisay si ay u kala ogaato inay u dhan yihiin iyo inay ka kala dhumeen laakiin nasiib xumo xilligaas 4 ari ah ayay weysay. taas macnaheedu waxay tahay inay dayacday waana inay ka fakartaa xalka iyo wixii ay samay lahayd maxaa yeelay aabaheed wuxuu ahaa nin aad u adag oo aan wax naxariis ah lahayn. gabadhan waxay ka cabsatay inay gurigii ku laabato iyada oo arigii kala maqan yahay maxaa yeelay waxay og tahay falcelinta aabaheed inaysan u adkaysan karin waxayna go'aansatay inay arigii raadiso oo aysan gurigii ku noqon iyadoo aan arigii oo dhammaystiran wadin. waxayna ka raadisay meel walba oo ay ku malaynaysay iyo meel walba oo ay martay saacado aad u badan ayayna ka qaadatay raadintoodu laakiin waxba ma aysan helin. waa ay ka niyad go'day raadinta arigan laakiin waxay go'aansatay intaan hameenku madoobaan wixii u haray inay gurigii la aado wix walba ha ku dhacaan. arigii ayayna gurigii u waday. markii ugu horreysay ee uu aabaheed wejigeeda fiiriyay wuxuu arkay inuu wejigeedu isbedelay cabsi iyo walwal badanna uu ka muuqdo waxayna si degdeg ah ugu sheegtay iyadoo isbari yeelaysa inay qayb ariga ka mid ah weyday si walba ay u raadisay laakiin ay ku guuldareysatay inay soo hesho. laakiin falcelinta aabaheed ayaa noqday mid aan laga filanayn aabe weliba falal aad u naxdin badan. aabahan ugu horreyn ul ayuu soo qaatay gabadhiina waxa uu u garaacay si waali ah. saaxiibayaal codsi horta muuqaalka like saara siina share garay. midda labaad muuqaalada soo diyaarintooda waqti badan ayaa iga baxa mudnaantii ay lahaayeenna ma helaan. wadadii aan 100,000 ku gaari lahayn ayaan ku jirnaa. page-ka follow haddii aadan ka mid ahayn dadkii hore ugu xirnaa. sidoo kale channelkeena 10,000 ayuu wax yar dhaafay asagana hala booqdo oo horey ha loo wado. aabahan markii uu garaacay gabadhiisa Raya jirkeedii oo dhan uu nabar ka wada dhigay asagoo sidii u garaacaya haddana maskaxdiisa waxaa ku soo dhacday fikrad kale oo shaydaani ah oo waali ah. Raya aabaheed wuxuu ahaa nin sixirka lagu yaqaano oo caan ku ah sidoo kalena sixirka waa uu ku shaqaysan jiray si uu dhaqaale uga helo. markii uu si kadis ah u waayay 4 ariga ah waxa uu aaminsanaa haddii uu camalka sixirka sameeyo inuu dib u heli doono arigiis asagoo awaamirta sixiroolayaasha fulinaya ayuuna sidaan sameeyay uuna qurbaan ama martiqaad u sameeyo shayaadiinta. waxaad isweydiinaysaa qurbaanka yaa loo bixi doona. waxa uu go'aansaday xilligaas inuu gabadhiisa Raya shayaadiinta qurbaan uga dhigo weliba inuu gowraco gabadhiisa oo shayaadiintu sidaas ay qurbaan uga dhigtaan. markaan Raya waxaa hor yaala 2 khiyaar mid inay doorato in la dilo oo nafta la dhaafiyo sidaasna qurbaan looga dhigo shayaadiinta iyo in lagu rido ceelkii shayaadiinta iyadoo nool. markii ay gabadhani maqashay aabaheed hadalkiisaas ilbiriqsiyo ayay argagax ku noolay. gabadhan aabaheed aad ayay u taqaanay inuusan cafinayn waa ay ogay. labadan xaaladood ee khatarta ah ee la soo hordhigay Raya waxay ka dooratay in ceelka lagu rido waxa laga yaabaa inay ku noolaato. aabahan gabadhiisa gacanta ayuu qabtay waxa uuna ku riday ceelkii ugu dhawaa ee tuuladaas ku agyaal. ceelkan oo ahaa midaan la isticmaalin loona soo dhawaan loona yaqaanay ceelkii shayaadiin waana ceel ay dhex degan yihiin inta halaq ah iyo wax walba oo laga cabsado. ceelkan aadka u cabsida badan ayuuna gabadhiisa ku riday iyada ooyeysa oo aad u baryay sidaas ayuuna uga tagay. Raya markaan waxay salkiisa joogtaa ceel oo dhirirkiisu yahay 38 mitir iyadoo la ooyeysa oo la qaylinaysa cabsi iyo argagax darteed. laakiin markaas qofka kaliya oo maqlaayay awoodayna inuu badbaadiyo wuxuu ahaa aabaheed waana uu ka dhaqaaqay oo gurigiisa ayuu iska aaday. maalinkii xigay waxa uu u tagay dhammaan dadkii tuulada deganaa waxa uuna u sheegay gabadhiisii Raya inay dhuntay oo uu waayay. dadkii tuuladuna baadigoob ayay ugu qabteen meel walba ayayna ka raadiyeen gabadhan yar. aan u soo laabano ceelkii Raya. gabadhan waxa kaliya oo wehesha u ah ceelkan
ceelkana kula jira waa koox masas, abeesooyin iyo dabaqaloocyo ah. haddii uusan ilaahay ka badbaadi lahayn adduunkan uusan calaf ugu qori lahayn xaaladdu way isbedeli lahayd. maalmo iyo asbuucyo ayaana mareen ayadoo ceelkan mugdiga ah ku dhex xiran. maalin maalmaha ka mid ah ayagoo ceelkan hareerihiisa ku cayaarayaan koox caruur waxay ka maqleen codka qof yar oo ilma ah. ilmihii yaryaraa aad ayay u cabsadeen maxaa yeelay waxay maqli jireen mar walba ceelkan inay shayaadiin iyo jinni degan yihiin. gurigooda markay ku laabteenna waxay waalidkood u sheegeen inay ceelkan ka dhex maqleen cod qof, laakiin waalidiintii waxay ilmahooda u sheegeen codkaasu inuu yahay jinni iyo shayaadiin, mar dambana aysan ka ag dhowaan ceelka. arrinta naxdinta leh markii laga joogo gabadhan markii ceelka lagu riday 40 maalin, waxaad isweydiinaysaa siday ugu nooleed muddada intaas leeg, laakiin jawaabteeda gadaal ayaan kaa sii doonaa ee ha iga degdeg. 40 maalin kadib wiil dhalinyaro ah oo ceelka agtiisa ari ku ilaashanay waxa uu maqlay cod gabar oo ceelka guntiisa ka yeeray. ceelka afkiisa ayuuna madaxiisa u dhoweeyey, si fiican ayuuna u dhageystay. kadibna waxa uu dhahay adiga insi miyaa tahay mise jin? wax yar kadib jawaab ayuu helay. waxa ay dhahday aniga raya ayaan ahay, icaawi. ninkan waa uu orday dadkii magaaladana waxa uu u sheegay inay gabar kala hadashay ceelkan gudihiisa. dadkii magaaladana waxay isdhaheen amay tahay gabadhii la waayey oo ay run sheegaysaa. dhammaantood ceelka ayay soo aadeen. markii ay ceelka dul imaadeenna waxay maqleen isla cod. hargadhaa dheer ayay soo qaateen waxa ayna ku xireen Cabdulkhayr nin lagu magacaabo. ceelka salkiisa ayuu u dhaadhacay gabadha ayuuna soo qabtay oo uu soo bixiyey. waxa uu u tagay gabadhan oo jirkeeda iyo tinteedaba ay dhoobo qarisay, geesaheeda iyo hareeraheedana ay dhooban yihiin masas iyo abeesooyin. subxaanaka yaa allah, sidee u badbaaday. markii uu bannaanka u soo saaray ninkani dadkii oo dhan waa ay aqoonsadeen gabadhani inay tahay raya, gabadhii la waayey. isla markaasna gabadhan isbitaal ayaaba loola cararay. xitaa gabadhan tinteeda hangaralayaal ama dabaqaloocyo ayaaba laga soo saaray. markii ay cilaajkii iyo daawooyinkii soo dhammaysatay booliiska ayaa la horgeeyey gabadhan. su'aalo ayaana la weydiiyey yaa ceelkan kugu riday. waxayna dhahday gabadhani aabbahay ayaa igu riday ceelka. isla markaas aabbihii ayaa la soo qabtay oo xabsiga ayaa la dhigay. laakiin aabbahan waa uu inkiray aslanba. waxa uuna yiri iyadoo ceelka hareerihiisa ku ciyaaraysa ayay ku dhacday. dadkii tuulada oo arrintaas beeniyeen ayaa sheegeen inuu ninkani sixiroolayaasha muddo fog la shaqaysanayay, gabadhiisana uu qurbaan u siiyey shayaadiinta. gabadhan yar markii la weydiiyey aabbaha sidan ayuu kuu galay ma la xisaabtanaa oo ma ciqaabnaa, waxay sheegtay inay aabbaheed iska cafisay loona ogolaado inuu xaaskiisa iyo carruurtiisa la noolaado oo la soo daayo. halkaas ayuuna uga baxay magaca Ummu Shawaayil oo dadkii tuulada ayaaba u baxsheen. macnaheeduna waa al-imra al-qawiya, haweentii adkay. markaan waxaan isweydiin sidee u nooleed 40 maalin ayadoon cunto iyo cabitaan midna haysan. waa kana hadalka gabadhan oo xaqiiqo ah ayadoo weliba ka sheekaynaysa. waana arrinta naxdinta leh oo aan kusoo gabagabaynayno fiidiyo. waxay sheegtay inay ceelka gudihiisa ku aragtay madaxyada dad hore oo qalalay, sidoo kale inay ku aragtay masas aad u fara badan. laakiin waxay sheegtay arrin kale oo la yaab leh. waxay sheegtay inuu maalin walba u imaan jiray qof aysan garanayn, dhar cadcad wata, nuur uu ka baxayo. maalin walba waxa uu u keeni jiray qofkaasi caano, waana ay cabi jirtay. taasina waa wadada kaliya ee ay ku nooleyd 40 maalin. ugu yaraan 5 qof asxaabtaada ka mid ah u sheergaray muuqaalka.